subax wanaagsan asxaabta halkan aan ka wada soconay iskaga xidhanahay bogga facebooka halkan aan ku suganahay waa karinta Xaaji Cabdilaahi Gamgam oo ah duleedka magaalada Sheekh halkan waxay la joogtaa ayeeyadii Caawa Muuse oo ah ayeeyadii aabbo halkan deegaankan iyo halkan ba waqtigii Maxamed Siyaad Barre waxa lagu xasuuqay dad tiro badan oo maanta ahaa qaar la gowracay iyo qaar xabad laga dhacay dadkaas waxa kamid ah Allah naxariistay awowgii aabbo Faarax Olyare bal ayeeyadii ayaan weydiinayaa mid kamid ah xasuuqyadii halkan ka dhacay taariikhdiisa iyo dadkii la laayay hawshaas sida u dhacday bal iga waran ayay horta fatasana ayaan halka u hoyanayna barada fatasana ayaan u hoyanayna waa roon baa noo bariyay waa roon ayaa noo bariyay beelaha hore ma aanan arki jirin beelaha markaa dagaalkii noogu horeeyay ee koobaad ayaa nagu dhacay ayuu ahaa wanagu markaa ayaynu kaliya nagu noqotay waa dareero namadii caalan u dareeray wadaadka iyo dad kale oo lamid ah sheekh way naga qabteen way nooga safar tageen way noo safar tageen marka Faarax iyo nin kale oo dad kale oo badan baa way noo safar tageen marka safarkii markii ay noo safar tageen aan warba iska hayn annagana namadii caalan naga tagay ayaa wax cadowna baa nagu soo baxay farabadan cadow farabadan baa nagu soo baxay rasaas baa lagu furay waana la cabsi galiyay markii la cabsi galiyay ayuu marxuumkiina wixii warnayo wadankii aad ka timaa waxba kuma hareeyeen hada jeeso hada xaga aad u tahati meel dhexe ayaa dabadna cadowga ka helay isagoo kale ba waa la isku xidhay halkii goobta ayaa dabadna lagu gowracay qaar nimaar ka warhayay odayaal ah oo intaal dararo cadowga iska sii daayay uu qumi waayay baa noo war keenay waqtigii raqdi dabad waa daynay raqdi dabadna ayaanu heshoonay markaanu heshoonayna de waxaanu nidhi wariyaareed marwar dilay dad waxay nagu noqotay waxaanu noqotay daynaanu barwarana oo deeata meedkana laga asoo bay noqotay adigu meedkii dabad sidaas asiiya baabaan la mudanay imisa qof baa wala socday waxa la socday marka laba nin oo ba isaga la dilay laakiin marka la leeyahay toban bay ahaayeen marka inta la leeyahay toban buura bay ahaayeen toban buura ah faaraxna laba baa lagu xidhay laba ayuu baa faarax lagu xidhay inta kale meel goobayaan isku dhow ma inta kale lagu laayay toban nin baa ma inta la dilay toban buura ah todoba faarax ku tiro beeta la dhexdhigay todoba faarax ku tirana beetan xaasi ayaa la dhexdhigay oo lagu dilay Xaaji Gamgam beertiisa ayaa todoba nin la maanta la dhigo lagu dilay faarax baa kamid ahaa faarax ayaa kamid ahaa saddexda kale waxay ahaayeen Cabdulaahi Cali Xiis qabay aniga aabahay waxay ahaayeen iyo ninka daayada halka laga soo qaday la diriyay marka ninkaas meesha maxay geeyay في halkee waxay daayada waxay sheekhu ka soo baqaaqaxay intuu baqaaqaxay oo si dhufays dooro oo degayba misagii maatidiisi ayaa la soo raadiyo goobtii baa loogu tagay goobtiisi marka hore uu ku baqaaqaray marka ka soo baqaaqay sheekhu ka soo baxay laakiin ma waxay si meelad ku baxsata dooro goobtii ku baxsan lahaa laga soo baxay oo lagu biriyay waa ka toban buura dadka la biriyay maxaa loola jeedaa kana la jeedaa cadow bay ahaayeen cadow daasho sheeyay naga naxayn ayuu bay ahaayeen anaga naxayn bay ahaayeen ninka halka lagu biriyay iyo baahay halka lagu diray Cabdulaahi Cali soo saddex maaha tobana halkana la dhiga beerta dhex ee tobankaas ma inta goobankayga lagu gowracay laakiin dadku wuu badnaa umadu way badnay la laayay way badnaayeen ha isaaqdin dabargoyn oo saaq laakiin way noqon weyde ما أنت عنك عاب هاي الدليل يصير لي قايل الدليل ولاد كي يدينا وهاي يعني وانو الحين الدليل ما أنت يقحهم عيد وانو قحنا ما أنت وانو كد وانو قحي كد وانو قحنا ما أنت ما أنت قحنا تسمع ما له ويترته لكن وانو قحنا ما كي وانو قحنا الساس يرى وانو قادر ما يقدر قادر إننا نقاق ويرو معلول لي أي لا يدبر بخني واي ولا سفرايو برع الله سفرايو لكن لقى سوقاتها سفر badan baan isku raacnay gabadhani waan la xiriyo koobaad markaan meel dhexe marayno iyo faqartu dhexe gabadhii iga dishay gabadhii la socotay inaan safarka wada ahayn ayay iga dishay gabadhii halkii baan la fariistay waa wataal cidla ah todobadii subaxnimo markay xabada ku dhacday ee gabadha la fariistay ay cadaadiisay saddexdii galabnimo nafti ka baxday baan halkii ka qayb annagoo ilaahay mooyaa cid ka saddex ahayn maydkii markii dabadna madkii nafti ka baxay la qaadi kari maayo ayaa geed hoosika ka soo dhaqay banaan ilaa ka soo dhaqay qaga aan walaashay la soo dawaday marka ma inta iga xun saddexda goob maanta la rogay ee sidana loo xasuuqay hajir laga liibantay iga si xumayd ba
ما أنت قبل كويلي سيل gabadhii igii wehelahayd safarka wada ahayn maalintii la iga dilay ayaaba igaga xumayd baan ku marka wallahi dee soo maray waa ay soo maray iyo dee agoonnimo iyo waxay hayday ima kala dee alxamdulillah hadda maanta dee waa noo alxamdulillah oo dee reer dhan baanu nahay oo maxay hayay isleegaaday oo waaweynaaday oo dee degayo waa hay aad ma xsantahay waa hay waad mahadsantihiin asxaabta intiin halkan igala socotay iga daawaysay allah naxariisto awowgay faarax ibraahim colyare iyo wiyaashii kale halkan lagu xasuuqay laguna dilay waqtigaas jidadkii kale ee reer Soomaaliland ama ummadda islaamka ee taliska maxamed siyaad barre uu dhibaateeyay intaan mar kale kulmayno salaamu alaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh waxa oo muuqaalkan idin ka imanaya karinta magaalada Sheekh Cabdilaahi Gamgam iyo aad u mahadsantihiin